ma aaminaysaa in uu uur qaaday ninkan waxaa lagu magacaabaa Thomas waxa uu qaaday 3 jeer uur waxa uu dhalay caruur caafimaad qabta sidee nin rag uur qaadi karaa maxaa ku kalifaa inuu nin rag uur qaado hadii uu qaado sidee buu u dhalaa muuqaalkeena maanta ayaa isku la fiirin doona sheekada ninkan oo 2018 ka yaabstay dadiyowga adduunka oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim saaxiibayaal soo dhawaada haday tahay markuu goorayso kanaalkan soo booqatid waxa ku leeyahay subscribe noo saar haddii aad hore noola joogteen muuqaalka noo la garay sidoo kale share asxaabtiina la wadaaga sheekada maanta way ka daran tahay sheekooyinkii kale waa nin 3 jeer uur qaaday 3 jeer uurku qaaday si caadi ah u dhalay ninkan waxa lagu magacaabaa Thomas waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka 1987 waxa uu xaaskiisa guursaday 2018 waxaana uu u dhalay xaaskiisa caruur 3 ah sidee nin rag uur qaadi karaa aan ku soo bilaabo Thomas yaraadis aan ka soo bilaabno Thomas waxa uu ku soo koray dalka Mareykanka magaalada Hawaii ayuu ku soo koray Thomas yaraantiisa ma ahayn rag ee wuxuu ahay gabadh markii uu soo qaan-gaaray ama teenage uu soo gaaray 16 jir meelahaas uu soo gaaray ayuu go'aansaday in uu nin iska dhigo ama qolada transgenderka uu ku biiro haddaba markii uu jeclaaday inuu ku biiro dhaqaatiir ayuu la tashtay dad khubaro ah oo dhakhtarkiis iyo waxaas uu la tashtay waxa lagu la taliyay inuu san iska saarin xubinta dhalmada laakiin uu isticmaalo waxyaabaha hormooniska ragnimada kor u qaada sida testosterone iyo waxyaabahaas inuu kor u qaado haddaba waxa uu bilaabay Thomas yaraantiisa inuu iska dhigdhigo nin Thomas wuxuu cuni jiray maalin walba kaniiniyaal iyo daaweyn ayuu qaadan jiray si uu u ekaado rag ugu dambeyn waxa uu qaatay passport iyo aqoonsi green card Mareykanka oo raga waxaan uu ku qaatay physicalkiisa ragga u eg iyo maadaama uu transgender uu yahay ee wadanka gaalada iyo Mareykanka uu sharci ka yahay transgenderki waxaas iyo dhaqan khaniisaadkaas uu sharci ka yahay ayaa u suura gashay inuu qaato warqad aqoonsi oo raga sidaas ayuu ku qaatay magaca Thomas wuxuu ahay gabadh magac kale ayuu lahaay laakiin ma hayo magac hore uu lahaa jiray Thomas 2008 ayay isguursadeen qoftaan haweeneyda oo ayadana ahayd transgender kale kadib markii ay muddo wada noolaayeen ayay go'aansadeen inay ilmo dhalaan ee gabadhii ilmo dhali weysay xaalada caafimaad awgeed isagii oo markii horeba dumar ahay ayaa go'aansaday ama iskula taliyeen asiga saaxiibadiisa cusub in ay ilmo dhalaan Thomas ayaan lagu qanciyay inuu uur qaado oo caruur dhalo Thomas ayaa sidaas ku noqday ninkii ugu horeeyay ee dalka Mareykanka caruur dhala laakiin asalkiisa hore nin muusan ahayn naag buu ahay haddii aad videogan ka heshay like saar sidoo kale nagu soo bir subscribe noo saar waa maasantiin